1400 oo sano ka hor magaalo yar oo saxaro ku dhex taala dadku waxay ku noolaayeen mugdi, jahli iyo dulmi. qabiil walba wuxuu la dagaalami jiray qabiilka kale. sanamyo ayaa la caabudi jiray. kuwa xoogga leh waxay dulmin jireen kuwa tabarta yar. laakiin habeen gaar ah wax walba way isbedeli doonaan. habeenkaas waxaa dhashay ninkii bedeli lahaa dunida ee u horseedi lahaa hanuun waa Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam. waqtigaas carabtu waxay ku jireen xaalad adag. sanamyada ayaa la caabudi jiray. dagaallo aan dhammaan jirin ayay qabiilada dhex mari jiray. dadka taanjiriinta waxay dulmin jireen kuwa saboolka ah. gabdhaha yaryarna nolosha ayaa lagu aasi jiray. dunidu waxay u baahnayd hanuun. allahna wuxuu doortay inuu soo diro nebi bedela taariikhda aadanaha. sanadkaas waxaa loo yaqaanay caamul fiil ama sanadkii maroodiga. sababta magacaas loogu bixiyey waxay ahayd nin boqora oo la odhan jiray abraha oo doonayay inuu dumiyo kacbada. wuxuu watay ciidan aad u weyn iyo maroodiyo, laakiin allah ayaa ciidankiisa halaagay ka hor inta aysan maka soo gelin. alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fi tadliil. isla sanadkaas ayaana nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ku dhashay magaalada maka. aabihii cabdullaahi wuxuu geeriyooday ka hor dhalashadiisa. sidaas darteed nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhashay isagoo agoona. hooyadiis aamina ayaa keligeed korisay. waxaa la sheegay in habeenkii uu dhashay ay dhaceen calaamado la yaab leh. dab weyn oo faris lagu caabudi jiray kumanaan sano ayaa damay. qaar ka mid a qasriyada boqorada ayaa gariiray. dadku ma ogeen ilmihii yaraa ee maka ku dhashay uu noqon doono nebi ay malaayiin qof raaci doonaan mustaqbalka. awowgii cabdimudallib aad ayuu ugu farxay dhalashadiisa. wuxuu geeyey kacbada agteeda isagoo allah u mahadnaqaya. kadib wuxuu u bixiyey magaca muxamed, magac waqtiga carabta aan dhexdeeda laga aqoon, laakiin mustaqbalka noqon doona magaca ugu caansan dunida. sida dhaqanka carabta ahaa, carruurta waxaa loo diri jiray miyiga si ay hawada wanaagsan ugu soo koraan. nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxaa nuujisay xaliima sacdiya. xaliima markay qaadatay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam waxay dareentay barako weyn. geeleedii oo caana yeeshay, xoolihii oo u xoogaystay, noloshii oo u barwaaqowday. caruurnimadiisii nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa agoon. markii uu 6 sano jiray hooyadii aamina way geeriyootay. wuxuu noqday ilmo yar oo aan haysan aabe iyo hooyo. kadib awowgii cabdulmudallib ayaa daryeelay, laakiin 2 sano kadib isna waa uu geeriyooday. markaas waxaa koriyay adeerkii abutaalib. inkasta oo uu faqri jiray, haddana aad ayuu u jeclaa nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam. nebi maxamed isagoo yar waxa uu ahaa ilmo akhlaaq wanaagsan leh. been ma sheegi jirin, cid ma dulmin jirin, dadka ma caayi jirin, balwad ma lahayn. xitaa ka hor nebinimada waxay ugu yeedhi jireen muxamed amiin. ilaahay wuxuu u diyaarinayay mas-uuliyad weyn. wiilkaas agoonka ahaa maalmaha ka mida wuxuu noqon doonaa nin bedela dunida. ninkii dadka ka saaray mugdiga, jahligana u horseeday iftiinka. ninkii ummaddiisa u dulqaatay dhib kasta. ninka maanta malaayiin qof qalbigooda ay ka jecel yihiin waa nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam. haddii aad jeceshahay qisooyinka islaamka iyo taariikhda ambiyada, subscribe saar channelka si aanay ku dhaafin qaybaha dambe. mahadsanid.